لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان أي درس يعني ما أنت قبل الله يا سيد الله بدن يحي وسورة مدنية وعلماء وحي بدن إن يسودكتي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذب وحكى ليس أبورك بني آدمك iyo ujeedada loo abuuray iyo adduunka markuu joogana sidoo uu qaybsan yahay iyo qaybuhu ka kooban yahay iyo aakhiro sida uu u qaybsanaan doono iyo meelaha uu ku kala dambeyn doono. macnaha mixwarka ee suuradu ay ku wareegayso midka isaga rabbi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim هل أتى وحا يمت على الإنسان إنسان ككركيس وحا كيمت حين وقت ومن الدهر الزمن ككمده وقت قاسو لم يكن أوصن أهين شيئا شيء أوصن أهين شيء قاسو مذكورا للشيء إنا أنه خلقنا وان أبورني الإنسان إنسان كيبان أبورني من نطفة دبيع بان كأبورني دبيع داشتو أمشاج يعني اسكو قسن اسكو دعدرسن نبتليه حالا امتحانين فجعلناه مركزا كيا لي سميعا مدوح مقلية بصيرا أو وحركيا إنا أنه هدينا ونعبيني هو إنسانك وحانو عبينون تصني السبيل جدك وانو عبينون تصني إما شاكرا حال يهمد مد شكرني وإما كفورا إنو يهي مد كفرني وكفر بدن إنا أنه أعتدنا وان ديارنا للكافرين كوا كافرين توحنو ديارنا سلاسل السلسلة وأغلالا إيا كتينة إيا وسعيرا إيا النار هريس. ربي يقول سبحانه وتعالى إنسان كوحا صومري وكيمت وقتي كمد الزمن ووحل وأها شيئا للشيء شيئا للشيء معنى وحل شيئا شرين وحن شرين بوأها وإنت لأبورين نبي آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأصل بشر كي ابن آدم انت الله أبور وقت واحد شري وصل بن آدم كو وحل الشيقاء هينو وصن شرين با تاسا صومرت وصن ترسلين بمعنى مركا كدب إله أبور سبحانه وتعالى آدم بالله أبوري آدم كدبنا ترن كبن آدم كو وحو النقضي لبعدا بيها من ذا marka inna khalaqna al-insana abuuristi horma waa abuurista dambe oo aadam iyo xaawo markii la abuuray kadib bini aadamka tarankooda iyo abuurkooda dariiqadan marka ku socday inna khalaqna al-insana min nutfa waxa jirin buu marka ahaa kownkan oo jira oo samaawaadka iyo dhulka iyo waxani samaysan yihiin oo waxa jirtay hadana wax bini aadam oo iyo insaan oo ku nooleen إنسان واحد شربه أسرعه تاسع صومرت وقت نوع عسى شري كذب الله سبحانه وتعالى وحوليه إنسان كيبان أبورني ووحن كأبورني من نطفة ودبيعة منيدة دبيعة منيدة وليبا أمشاج يعني اسكو برحن أما اسكو قسم معناها واحد اسكي قسم تهي أو اسكي دحشرته تكتمد هو يحق هذا iyo mid ka timid aaba xagiis labadaas oo isku qasan oo isku barxan ayaan ka abuurnay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaa loo abuuray oo ujeedadu maxay tahay nabtalihi way
waxaa laga soo bilaabay muusan jirin, waxaa lagu xijiyey waana abuurnay, waxaa lagu xijiyey ujeedada abuuristiisa ka dambaysay danta laga leeyay oo maxay tahay nabtaliihi annagoo imtixaanayn. waxaa meeshan marka lagu keenay adoon jirin baa lagu keenay in lagu imtixaano oo lagu jirrabo oo aad kala baxdaan kiina xun iyo kiina fiican inaad kala baxdaan. qalabkii iyo xubnihii iyo aaladii marka uu imtixaanka ku geli lahaaba haddana la sheegay fajacalnaahu samiican basiiran baa lehi subxana wa tacaala. maqalka iyo araggu waa xubnaha keenaya bini aadamku inuu noqdo mid imtixaanan. hadduusan maqalna lahayn aragna lahayn waxbana uusan kala garanaynin hadda markaa maxaaba laga imtixaani. xubnihii imtixaanka uu kaga bixi lahaa ama uu ku dhici lahaa hadduusan isticmaalin xubnihiina waa la siiyey. intaa waxaa dheer markii lagu imtixaanayo waa in inta ka horaysa wax lagu kala caddeeyo oo lagu yidhaahdo shaygaasina waa khaldan yahay waad ku dhacaysaa, shaygaasina waa saxsantao waad ku baasaysaa. ilaan ardayga intaan la imtixaanin baa wax la kala baraa oo duruus loo akriyaa. markuu duruusta qaato kadib wixii uu qaatay loo kala caddeeyey baa lagu imtixaanaa. marka isagii haddii la abuuray oo la diyaariyey rabbi wuxuu leeyahay innaa hadaynaahu sabiil, jidkiina waan tusno waanu caddaynay. waxaa lagu caddeeyey rasuul baa loo soo diray, kutubna waa loo soo dejiyey, waana loo qeexay. waxaa la yidhi jidkaas cadaab baad ku gelaysaa, jidkaas iyo nolosha qaabkaasna janno ilaah iyo radihiisaad ku helaysaa. taana waan u samaynay buu rabbi subxana wa tacaala. labuu mid noqday marka. intaa markii laysugu hagaajiyey muxuu u kala baxay? natiijadii imtixaanku waxay noqotay imaa shaakiran wa imaa kafuuran. imtixaankaa la geliyey natiijadii ka soo baxday ama waa mid shukrinaya oo ilaahay nicmooyinkiisii ku shukrinaya. waa nicmatul khalqigii loogu hormariyey abuuristii ah. waxaa ka mid a maalan waxa weeye oo ku xigta nicmada aalooyinka iyo xubnahan qaaliga ilaahay siiyey, nicmada jidka loo caddeeyey wuu shukrinayaayo ilaahay buu subxaana wa tacaala u ictiraafayaa. kadibna nicmadiibuu wuxuu u isticmaalayaa si ilahay raalli ka yahay subxana wa tacaala. wa imaa kafuuran iyo inuu yahay mid kufrin badan. allihii abuurtay ma yaqaano. xubnahan qaaliga iyo 66 allaha isugu dubariday waa diidan yahay. rabbigii subxaanahu wa tacaala kutubtiiyo rususha usoo dejiyey waa beeninaya. kafuur weeye waa mid kufrin badan. labadaa mid ka miduu noqonaya. labadaa xaal buu u kala baxaya. labadooda maxaad ugu talagashay oo loo diyaariyey? inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaqlaalan wasaciiran. midkii imtixaanka ku dhacay oo kafuurka ahaa abaalkiisii baa lasoo hormariyey. rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala kuwa gaalada waxaan u diyaarinay silsilado iyo aqlaal. aqlaashu waxa weeyaan waa kaan soo marnay, waa katiinadaha gacmaha iyo luqunta la isugula xidho. gacmaha iyo luqunta la isku qabanaya markaasay isku xidhayaan. aqlaalta kuwaasaa la dhaha iyo naar huraysa oo saciira. marka qolo waa qoladaas. waxaa inoo laaban qoladii shaakiriinta ahaa abaalgudkoodii. aayadaha ka dambeeya iyagana lagu qeexaya masiirka dhan iyo waxa dhan iyo dunyadu qaabkay u kala socoto iyo meeshii bini aadam ka soo bilowdayba intaasaaba lagu gabagabeeyey. ujeedada loo keenay meesha, goormaa la keeno, yani waxa weeyaan yani goormo adduunka kusoo biiray, wakti baa jiray uu yimid, yani maxaa loo keenay waa la caddeeyey, yani waxa weye seebuu ku dambayn doonaa waa la caddeeyey. waxbaba ma laabnaba macna. aayaddani marka suuraddani maadaama ay aakharo iyo qiyaamo iyo aada uga warramayso, nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu akrin jiray maalinta jumcada ah salaada subax ragcadeeda dambe buu nabigu ku akrin jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. saas macna. hal ataa hashani marka asalka hal waxaa loo yaqaanaa kelimada hal waa kelimaadka su-aasha loo isticmaalo, waa xarfu istifhaam waay. laakiin hadda macno su-aal meeshu ma wadato, macno istifhaam ma wadatee bimacna taxqiiq bay hadda faa'iidaynaysa. hal ataa xaqiiqe waa yimid cala alinsaani insaanka korkiisa waxaa ku yimid oo soo maray xiinun waqti oo min addahri zamanka ka mid a, waqtigaasoo lam yakun uusan ahayn shay-an shay, shaygaasoo madkuuran la sheego. waqtigaa wax la sheego muusan ahaynoo wax jira maahayn way macna. innaa anagu khalaqnaa waan abuurnay al-insaana insaankii min nudfatin dhibic mani-a baan ka abuurnay. dhibicdaa manida oo amshaajin isku dhex qasan ama ma ahe yani waxa way barax
barax aho la isku dhex daray oo hooyo iyo aabbo manidoodii oo la isku dhex daray ayaa laga abuuray nabtalihi xaalanu imtixaanayn marka la abuurayaba talagalku waa in la imtixaano fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay samiican mid wax maqlaya basiiran oo wax arkayaanu ka dhignay maqalkaa iyo araggaana waa xubnihii uu imtixaanka ku geli lahaa wey innaa anagu hadaynaa waan hanuuninay hanuunintan hadda waxaa laga wadaa oo caddayn iyo tusid baa laga wadaa ilan hidaayadaa laba qaybood ahay hidaayatu dilaalati wa bayaan iyo hidaayatu tawfiiq baa la kala yidhahdaa tan waa bayaankii wey macna wa ama hamuudu fahadaynaahum waa ka soo marnay fastaxabu alcama cala alhuda waxaa kaloo u tegi doonaa yani waxa weeyaan wahadaynaahu najdayn macnaha waa caddayn marka iyo tusid innaa anagu hadaynaahu waanu tusno waanu cadaynay asabiila jidkii baanu cadaynay jidka toosan baan tusnayoo rusulna waa loo soo diray kutubna waa loo soo dejiyey waxbaa loo kala cadeeyey imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinaya wa imaa kafuuran iyo inuu yahay mid kufrin badan iyo xaal uu yahay mid kufrin badan labadanba waa xaal imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinaya wa imaa kafuuran iyo xaal uu yahay mid kufrinaya labadaa mid ka mid xaal wey innaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay salaasila silsilado ayaan u diyaarinay wa aqlaalan iyo katiinado lagu xidhxidho oo gacmaha iyo luqunta layskula xidho iyo wasaciiran iyo naar huraysaan u diyaarinay qoladaasi waa qoladii imtixaanka ku dhacday ina alabraara baariyaalka imtixaanka ku baasay ee ilaahay subxaana wa tacaala adeeci jiray yashrabuuna way cabayaan min ka'sin galaas xaggii bay ka cabayaan galaas khamray cabayaan khamradaasoo kaana u ahaaday misaajuhaa kan lagu dheehaye lagu barxayaayey kaafuuran uu kaafuri caynan uu ahaaday kaafuuranta ka bedel waxa lagu barxayaayey kaafuuran uu ahaaday caynan uu ahaaday waxa lagu barxayaay cayntaasoo yashrabu ay wax ku cabayaan bihaa iyada cibaadullahi addoommada ilahay baa wax ku cabaya ama yashrabu waxaa ka dhergayoo ka cokonaanaya bihaa iyada cibaadullahi baa ka cokonaanaya yufajiruunaha cayntaasoo yufajiruunaha ay burqinayaan tafjiiran burqin meel alle meeshay tagaan bay intay u jiitaan bay macnaha waxa way burqinayaan yuufuuna way oofiyaan dadka abraartii binadri nadarka ayay oofiyaan wayakhaafuuna waxayna ka baqaan yawman maalin bay ka baqaan maalinkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu sharkiisu mustatiiran mid baahsan yani waxa weeyaan mid duldulo yani meel walba gaadho way macnaha wayucimuuna way quudiyaan alطacaama cuntadiibay quudiyaan quudkiibay quudiyaan calaa xubbihi kalgacaylkiisa dushiisa jacaylkiisa xaalay ku dul sugan yihiin miskiinan bay quudiyaan mid miskiina wayatiiman iyo agoon wa asiiran iyo mid la soo qafaashay oo yani waxa way yani maxaabiis markay sidaa u quudinayaan qaa'iliina ayagoo leh bay quudinayaan ayagoo odhanaya inamaa nucimukum waan idin quudinaynaa uun liwajhillahi ilaahay wejigiisa un baanu idin quudinaynaa ilaahay dartii un baanu wax idin siinaynaa laa nuriidu dooni mayno minkum idinkay xaggiina jazaan wax abaalgud ah walaa shukuuran iyo mahadnaqtoona idinkama rabno inaa nakhaafu waanu baqaynaa min rabbinaa rabbigana xaggii yawman maalin baanu min rabbinaa rabbigana xaggii xaaluu ka ahaaday yawman maalin baan ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusan weji tub badan maalin weji tub badan qamtariiran oo shido badan ama fool uruuris badan qamtariirka iyo cabuuska inay isku macno noqdaanna waa dhici kartaa oo isku macno dhawaadaan in la kala duwana way dhici karaysa intaasay yidhaahdeen inaa nakhaafu waanu baqaynaa min rabbinaa rabbigana xaaluu ka ahaaday yawman maalin baan ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusan weji tubid badan qamtariiran oo adag oo macnaha dheer fawaqaahum markaasuu ilaaliyey allahu allah ilaaliyey shara dalika kaas sharkiisa alyawmi ee maalinka ah maalinkaa sharkiisuu ilaahay ka ilaaliyey walaqaahum wuxuuna la kulmiyey nadratan yani weji dhalaal iyo wa suruuran farax wejigoo dhalaala iyo farax qalbigaabaa lala kulmiyey wajazaahum alla wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu sabirkay sabreen sababtii jannatan janno ayuu ku abaalmariyey iyo wa xariiran iyo xariir ayuu rabbi subxaana wa tacala ku abaalmariyey qolyahaasa aada loogu dheeraanaya waxaa aada loogu dheeraanaya
dadka imtixaankaasi laysu abuuray ee adduunka loo joogo kuwa ku baasay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ku dadaalayo wixii ilaahay raalli gelinaya ku dadaalay barashadiisa ku camalfalkiisa qaadashadiisa fidintiisa dadkaasa macnaha abaalgudkooda aada loogu dheeraaday rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ina alabraara kuwa baariyiinta ah kuwa baariyaalka ilaahay baariga u ah baariga waxaa la yidhahdaa amarkiisay qaataanoo way ka dambeeyaanoo way adeecaan yashrabuuna way cabayaan min ka'sin kaasiga waa inagii soo baranay waxaa la yidhaahdaa galaaska markay khamradu ka buuxdo khamrada gooni ahaanna waa loo dhahaa khamrada gooni ahaanna waa loo dhigi karaa markii yani galaaska ay khamra ka buuxdana waa la yidhahda laakiin galaaskoo keligiiya ka'si lama dhaho qur-aanku saa uma isticmaalo ayib yashrabuuna way cabayaan min ka'sin galaas khamro ayay cabayaan khamradaasoo ama ka'sigaasoo kaana uu ahaaday misaajuha ka lagu dheehay ee lagu barxayaay kaafuuran uu ahaaday khamrada ay koobkaa ka cabayaani waxaa lagu barxayaa kaafuur kaafuurka waa geed udgoon oo inta badan maydka marka la aasayaa la marmariyaa amwaadda marka la aasayo yaa kafanta iyo maydkiya lagu udgiyaa waa geed udgoon kaafuurkaasaa marka khamradooda lagu barxayaa oo lagu darayaa waxay leeyihin culimadu wuxuu leeyahay cadiinna wuu leeyahay oo kaafuurku waa cadcadi midda labaadna aadna waa u udgoon yahay ta saddexaadna wuxuu leeyahay tabriid oo wuu qaboojiyaa yani waa maada baarida oo qabow oo wixii lagu darana wuu qaboojiyaa waxaa kaloo uu leeyahay yani markii lagu daro khamrada lagu daro nooc macaanu u kordhiyaa bay dhahay oo macaanbu macnaha wax way ku abuuraa adiga waxa weeyaan kaafuurkaasi waa xaalad aakhara laga warramayaaye kaafuurkaasaa loogu barxayaa kaafuurku ma aha kambini iyo waxaa laynoo sheegay oo aayadan dambe ay sheegaysaa marka kaafuurka bini aadamku uu haysto ama waa mid la tubay ama waa mid la riiqay waa mid meel ku guntan laakiin kaafuurka iyaga loogu barxayaay waa il durduraysaba caynan il baa lagu barxayaa baraxiisu waxa weeyaan waa kaafuur caynan il weeye saasaa la dhahay oo macnaha waxa weye in bedel laga dhigo waa la ciraabi karaya ama waxaa la dhihi karaa min ka'sinta in laga bedelan waa la heli karaa macnaha yashrabuuna min ka'sin koob bay cabayaan oo maxalkeeda mansuub ah caynan il bay cabayaan saana waa la dhihi karaa caynan il bay cabayaan ishaasoo yashrabu ay cabayaan bihaa iyada cibaadullah toora iska maro waxaad tidhahdaa yani waxaa loogu barxayaa il baa loogu barxayaa kaana wuxuu ahaaday misaajuha badhaxeedu khamradaa badhaxeedu wuxuu ahaaday kaafuuran kaafuur buu ahaaday caynan il buu ahaaday waa il durdur ah ee wax meel ku guntan iyo wax riqriiqan iyo maaha ishaasoo yashrabu ay cabayaan bihaa iyada ay cabayaan cibaadullahi addoommada ilaahay baa cabaya yashrabu bihaa ba'da waxaa laga dhigayaa siliya tawkiido yani way cabayaan baa la dhahaya ama sida ibnu kaiir u leeyahy waxaa tidhahdaa yashrabu bimacnaa yatarawaa waxaa ka cokonaanahaya oo ka dhergaya bihaa iyada cibaadullahi baa ka dhergaya oo yani cabitaankani macno waxay wadataa ka dhergid ah sidaana waa la dhihi karaa macnaha yufajiruunahaa ishaasoo yufajiruunahaa ay burqinayaan tafjiiran burqin yani waxa weye shayga markaad biyaha aad intaad afka ka qaado ama meeshii shaygii ku dadnaa intaad ka qaadda ay soo boodaan baa tafjiirka la yidhahda saas manaa alimbac baa la yidhahda alimbac marka burqintaa waxaa laga wadaa intay jiitaan baa meel alle meeshay joogaanba waa la tegayaan biyihii yani taqriiban waxaad moodaa sidii tuubo oo kaleeto la socoto meel alla meeshay tagaanba intay furaan unbay u burqanaysaa yufajiruunaha tafjiiran ee ma aha wax inta meel keliyata uu joogo meeshaa uu loogu tegayo oo wadaan la qaadanayo oo laga soo darsanayo ma ah ee meel walba waa la socotaa meel alla markay rabaanna way burqisanayaanoo aayad bay macnaha waxa weeye furka ka qaadayaan markaasay biyahaasi usoo baxayaan macnaha yufajiruunaha tafjiiran saasa laga wada yuufuuna adduunka markay joogeen taa abaalgudkoodii markii la sheegay oo janno inay gelayaan khamradaana cabayaan ishaas durduraysana ay ka cabayaan meeshay doonaanna la tegayaan markii lainoo sheegay baa waxaa la sheegay waxa ay ku muteen abaalgudkaas ee adduunka ay samayn jireen maxay adduunka qaban jireen yuufuuna binadri baa layidhi nadarkay oofiyaan nadarka waxa weeye inaad adigu isku laazimiso waxaan ilaahay kugu laazimin ood shardi iskaga dhigto
وكلا بحيا مرك شيء قاعد تقول لازم يصير هدو ضاع إلهي ولازم يناد فلس شيء قاعد تقول لازم يصير شرط ككردقة تهدوش يهي معصية إلهينا ما بنانا مركا يناد فلس وما بقنت ميبا وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه النبي صلى الله عليه وسلم روحي كن نذر إنه إلهي أطيعه صلاة تكتات كن نذرتي إلى الصنطات كن نذرتي صدقات كن نذرتي جهاد بات كن نذرتي وحاءات كن نذرتي هدوية شيء إلهي تعلي وضاعه النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلهي ها أطيعه وهفلي نذر كيس حدي وحاءات كن نذرتي معصية هي وحسن إلهي الرالك أهينا إن هفلنين أو إلهي عاصنين أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي قرابة إنا تقويسوه هبل إنا الله اللي وحيالا ما عاصوا كليته معناها أرجعني كواسي هفلنين بلا عمرين marka nadarka way fuliyaan nadarka sidiisaba gelitaankiisa hore waa laga fiicay inaad nadar gasho maxay yeelay sida nabiga sallallahu alayhi wasallam nadarku sidiisaba ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa iyo maamulkiisa waxba kama bedelo waxaan qornayn nadar keeni maayo laakiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inma yustakhraju bihi min al-bakhil min bakhil oo cibaadada ilaahay iyo daacadiisa bakhil ku ah buu nadarku wax ka soo saaraa waxba kama bedelo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahu hadaan waxa ay siiso waxaan nadar ku galayaa inaan soomayo wixii uu ku siin lahaa hadii lagu sii horu u qornaa nadarkani waxba kama bedelin nadarkani siisa waxba kama bedelo waxaan lagu sii horu u qornaa laakiin maxaa la helay waxa uu meesha la helay soonkii aad ku bakhayleyseed laga soo saari waayay buu nadarku ka soo bixiyay laakiin wax kale isbedel uu keenayo ma jiro saas daradeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam nadarka in la galo uu reebay ha galina buu hadii la galo oo ruuxu nadarka galo daacana uu yahay waa laazim in la furiyo jabintiisu marka macsiyo noqonaysa yuufuna way oofiyaan bin nadri nadarkay oofiyaan wayakhafuna wayna ka baqan yawman maalin bay ka baqan maalinkaasoo kaana uu hada sharruhu sharkiisu mustatiran mid bahsan mid fitsan oo bahsan u yahay yani waxa weeye waxa la yiraahdaa mustatir shay waxa la yiraahdaa markuu yani uu dulduulo dambaburada iyo mesela shaygu markuu dulduulo baaho oo fido ayaa la yiraahdaa laakiin halka waxa laga wadaa maalin sharkiisu uu baahsan yahay oo fitsan oo dadku dhan wada gaarayo macna wayut'imuna waxay quudiyaan maalinka aakhirana way ka baqaa waxa laga wadaa way ka diyaar garoobaan way ka gaashantaan wayut'imuna way quudiyaan at-ta'ama quudkii bay quudiyaan oo waxay siiyaan masaakiinta يطعمون ويقوديان الطعام قوتكي على حبه شعيلكي سحالي كدل سجيهم أيقو شعيل بوحي قودينيان مسكينا المسكين بيقودينيان ويتيما إيا أقول إيا وأسيرا إيا من لسوق فاشي ومحابسة انت صيصينيان على حبه لا وحالقوا ولا عنتظى مركي بحينيان ويتعلي ومرأي يجا النفط ذا بربطبا maaha intay ka kaaftooneen oo ka dhargeen inay markay waxay ka dhargaan marka masaakiinta iyo agoonta iyo yaani dadka maxaabiistii ay siiyaan ma ayagoo naftoodii jecesho iyagoo naftooda u baahan bay naftooda intay ka huraan bay waxay siiyaan kuwa kale siiyaan taa way mid amaanana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amaanay amma yaani waxaad ka dhartay inaad bixiso dad badan baa taa yeela oo da waxaad ka dhartay labiskaad ka baxday iyo cuntada laga dhargay la iska wadaadin raba iyo yaani waxa weeye in la iska bixiyay taasi way badantay mid laakiin la amaanaya taasmiha waxa weeyaan adoo jecel oo u baahan inaad bixiso way macna saas daradeed baa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam afdalu sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'mulu al-ghina wa takhsha al-faqra bu nabiga sallallahu alayhi wasallam sadaqa waxa ugu fadli badan inaad sadaqaysato adiga oo fayow ilaan markaad jirto dan baad u sadaqaysanay shahihun oo hadana ku bakhaylahaya oo raba naftaadu ceshanayso hodantinimana yidi diila ka qaba يتجرنوا فقرنا كبقي لما ربحت بمركز جوجتا حداد نقطة تاجر وين وحوله سو إسماعيل مركز هذا واحد ويا وحوجا يرير وتورتوري حلقة وايد ما حداد فقير تهاي وحبا إلى سبوك هياك سنين شيلين كمركز شيء كان كتير شهوة لبلعبي لكن مركز وحوجا ير انت دكتور وحوجا هذيك هكلا داتانا على سنة والله فقر بدي بقول نقول waxyar haday ku kordhaan aad isleedahay wallahi taajiriman qarka u saaran tahay markaas oo kale way markay sadaqadu ugu fadli badan soo jeed ada baahan marka sadaqadu markay ugu fadli badan tahay maxay yeelay nafta markay aad u jecel oo dibna waxa isleedahay faqri ba ka jira
horeyna hodantinimay fiirsanaysaayoo u muuqataa markaasoo kale marka fadli badan tahay markaasoo kale marka bixinayaanoo dadkaa baahan bay siinayaan miskiinan bay siinayaan iyo wayatiiman agoon iyo wa asiiran asiirkaasi waa ruuxa lasoo qafaashay ee lasoo qabsaday dagaalka ugu soo qabsaday waxaa soo gelaya bay leeyihiin culimadu ninka ka la soo qabsaday ama ha ahaado gaal ha ahaado ama muslim la qabsaday oo la qafaashay ha noqdo ama addoommo asalkoodii la qabsaday laakiin gacanta muslimiinta ku jira ha noqdeen kulli way soo wada gelayaan asiirkaasay wada imaanayaan macna saas daraaddeed baa nabigeena sal alay wasalam aad buu saxaabada ugala dardaarmi jiray dadka maxaabiista ah in loo samafalo dadka maxaabiista maxaasinta shareecada ka mid yani waxa weeyaan quyuuda iyo shuruuda ay shareecada islaamku ka dejisay maxaabiista nidaam ka dejiye ma jiro laakiin muslimiintan ka warhaynin macna ayib markay sidaa u bixinayaan waxay leeyihiin qaa'iliina ayagoo odhanaya inamaa nuطcimukum waan idin quudinaynaa liwajhi llahi ilaahay wejigii dartii baanu idin quudinaynaa alla dartii un baanu wax idin siinaynaa laa nuriidu dooni mayno minkum xaggiina idinka dooni mayno jazaan abaalgud walaa shukuuran iyo mahadnaqtoona ma afkaysaa ka odhanaya maya say mufasiriinta salafka leeyihin si afka arrintaa ka odhan maayaane laakiin qalbigay ka leeyihin qalbigoodaa waxaa ku jira markay bixinayaan weji ilaahay iyo ilaahay dartii un baan wax kaga rabnaaye laakiin idinkan aan idin siinayno abaalgudna idinkama rabno inaad berrito noo abaalguddaan idinkama rabno inaad noo mahadnaqdaanoo waa mahadsantihiinna dhahdaanna idinkagama rabno laakiin ilahay baan wax kaga doonayna arrinkaasi qalbigoodu ku jira afka kama odhanayaan maxaa yeelay ruuxii hadday markay siiyaan miskiinkii ama agoonkii intaad siisa afka haddaad ka tidhaahdo ilaahay wejigiisaan kuu siiye abaalgudna kaama rabo waad mahadsan tahayna haydhihi waxoogaa qalbigiisii baad dhaawacaysa sooma marka afka kama dhahayaane laakiin qalbigooday ku jirta arrintaasi macnaha saas weeyaan innaa anagu bay odhanayaan nakhaafu waanu baqaynaa min rabbina rabbigana xaggiisa xaaluu ka ahaaday yawman maalin baanu ka baqaynaa cadaab maalin cadaabkii wey maalinkaasoo cabuusan weji tub badan waa kaan soo marno cabasa iyo waa kaan soo marno macnaha waxa weeyaan cabasa yani waxa weeye cabaska iyo basarka iyo yani basara iyo cabasa iyo qamtara iyo waa kelimaad isku macno dhow waa kelimaad isku dhacdo wejigu markuu uruursamo sidaasa la yidhahda oo macnaha waxa weye weji tub baa la yidhahda ama weji uruurin baa la yidhahda ama weji kaduud baa la yidhahda kolba kaas yidhahda macnaha maalinkaasoo cabuusan weji tub badan oo khalqi badan baa wejigooda ururayayo murugta iyo dhibka haystaa wejigooda la ururaya la kaduudaya qamtariiran oo shido badan ama qamtariiran dheer oo dhibkiisu badan yahay fawaqaahum allahu alla ka ilaaliyey sidaa markay ahaayeen waqaahum waxaa ilaaliyey allahu alla ilaaliyey iyagii shara dalika alyawmi maalinkaa sharkiisa ayuu ka ilaaliyey walaqaahum wuxuuna la kulmiyey nadratan weji dhalaal nadrada waa dhalaalka wejiga wejigoodoo iftiimaya ruuxu markuu aada u barwaaqaysto oo cuno uu cabo oo nasto wejigiisaa laga gartaa inuu ladan yahay sooma ladnaantaa wejiga ka muuqataan nadrada la yidhahda wa suruuran iyo farax qalbiga ah yani suruurku marka waa faraxa qalbiga nadraduna waa iftiinka iyo dhaldhalaalka wejiga macnaha wajazaahum alla wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu sabirkooda sababtiisa wuxuu ku abaalmariyey jannatan janno iyo waxariiran iyo xariir buu ku abaalmariyey waa labiskoodii wey macnaha muttaki'iina xaal ay yihiin kuwa xusullaysan fiihaa jannaadka dhexdooda cala alaraa'iki sariirihii korkooday ku xusullaysan yihiin laa yarawna xaal aysan arkaynin bay xusullaysan yihiin fiihaa jannada dhexeeda shamsan qorax walaa zamhariiran iyo qabowtoona wadaniyatan xaal ay tahay daniyatan yuriiduunada yani waxa wey oo maxalkeedu xaal yahay baa laga xalinaya wadaniyatan xaal ay tahay ayay macnaha jiqilaysanayaan jannada dhexeeda ku jiqilaysanayaan daniyatan xaal ay tahay mid ay dhowdahay calayhim korkooda ay u dhowdahay dilaaluhaa yani waxa weye jannada hooskeedu uu dhow yahay wadullilat waa la layliyey qutuufuhaa yani gurashadeeda midhaha laga guranaya ayaa la layliyey tadliilan layli baa la layliyey waa carbisanta wayutaafu waxaa lala wareegi calayhim korkooda waxaa lala wareegayaa biaaniyatin weelal oo min fidatin fida ah iyo wa akwaabin iyo koobab akwaabtaasoo kaanat ahaatay qawaariira dhalooyin quruurado qawaariira ahaaday quruurado oo min fidatin fida ah waa dhalooyin haddana fida ah
يعني كوبب كاسو قدروها أي قدرين تقديرا قدرت ويقدرينه كوي كالشقين يبا سو قياسي ويسقون والله ورابنا يا فيها جنة دحيده waxa lagu waraabinaya ka'san galaas khamro galaas kaasoo kaana uu ahaaday misaajuha kan lagu barxay zanjabilan uu sinjibiliya aynan kaasida ka badal aynan ilba la waraabinaya ishaasoo fiiha dhexdeeda ahaatay jannada dhexdeeda ahaatay ishaasoo tusamma lagu magacaabo salsabilan salsabil lagu magacaabo ayagiina wali barwaaqadooda inoo wada muttakiina fiiha ala al-ara'iki wa hoygoodii iyo meeshay seexanayeen ara'ita walagi soo marnay yani waxa weeyaa waa sariir khaas ah waa jamcu arika arikadana waxa la yiraahdaa waa sariirta arooska la yiraahdaa sariir khaas weeyano yani waxa weey sariirta waxay ka dul dhisi jireen markii yani lagu aqal galayo oo reerku ku cusub yahay ba korkeeda waxa laga dhisayaa sidii midalan shandarawada oo kaleeto shay shandarawada sidoo kaleeta oo markaneecado kale ah oo aad loo qurxiyay oo dhaldhalaalayo naashnaashan bay sariirta korkeeda ku hagaajinayaan sariirta arinta korkeeda lagu hagaajiyay ayaa waxa la yiraahdaa arika la yiraahdaa wala sariirta arooska sariiro dhammaha arikadu macna sariiraha korkooda ayay ku xusulaysan yihiin oo yani waxa weeye ay ku raaxaysanayaan markay sariirahaasi dul joogaan ma ay arkayaan jannada dhexdeeda qorax iyo qabow toona wax kulaylana arki maayaan wax qabowna arki maayaan jannada hawadeedu waa hawo mu'tadil ah waa hawo dhaxdhaxaado mana qabowga mana kulula kulayl ku dhibana arki maysid qabow ku dhibana arki maysid waxa u dhow jannada hooskeedii harkeedu waa u dhow yahay miraha ay ka guranayaanna waa kuwa la leeliyay waa la leeyay macallin waa la sakhiray haweenayeen way carbisan yihiin meel alla meesha joogtiyo xaalad aad ku sugan tahayba way ku iimaanayaan macna waxa weeye uma baahnid inaad intaad istaagto oo aad macnaha waxa weeye geedkii fuusho ama laantii soo qabato inaad miyii soo goosato u baahan waa carbisan yihiin oo waa leeliyan yihiin waxay u carbisan yihiin xaalad walba oo aad ku sugan tahayba inay ku yimaadaan oo hesho saas ay u carbisan yihiin waxa lagu la wareegayaa markay sidaas yihiin oo sariirahooda dur joogaan mirahoodana saa ay ugu dhow yihiin oo u leeliyan yihiin waxa lagu la wareegayaa weelashaas oo fidda ah yani fiddadu waa macdanta kale ee macnaha waxa dahabka soo raacdo yani waxa weelal ka samaysan fiddo ayaa lagu la wareegaya iyo koobab akwaabta waxa la yiraahdaa yani waa koobka markuu salayn sidal la qabtana lahayn khurtuumna uu lahayn dhag laga shubana uu salayn sida kildhigo kale dhag la qabtana uu salayn baa waxa la yiraahdaa kuub la yiraahdaa kuub markaas la yiraahdaa yani waxa way ibriiqna wayna soo marnayo abaariiqda waxa la yiraahdaa markay leeyihiin sidada khurtuumka iyo dhagta laga shubana uu leeyahay markaasna abaariiq baa la yiraahdaa macna marka koobab ayay kula wareegayaan koobabkaasoo oo qururada ah waa dhalooyin oo gudihiisa waxa ku jira koobka kor baa laga arkaya koobabkaasi maxay ka samaysan yihiin dhalada wax badan baa laga sameeyay maadaday ka samaysan yihiin fiday ka samaysan yihiin waa wax la yaab leh yani waxa aan jirin baa leeyahay adduunka oo ilaa hadda adduunka aan lagu haynin waa jiraan weelal dhala ah oo waxa ku jira ee gudahooda ku jira kor laga arkay laakiin weelal dhala ah oo haddana fidda ka samaysan adduunku ma gaadhin wali dhalada waxyaalo kale laga hagaajiyaa laakiin inay fidda laga hagaajiyo oo fidda inta la soo qaado dhalo laga sameeyo wax adduunka ilaa hadda lagu hayo ma ayaga weelashoodu waa dhalo haddana waa dhalo fidda ka samaysan saas macnanta qaaliga bay ka samaysantaa macna saas rabbi subhanahu wa ta'ala ku sheegay qadaruha taqdira waxa laga wadaa weelashan waa la soo jaangooyay oo waa la soo qiyaasay ayaguna waa qiyaasan yihiin waxa ku jira waa qiyaasan oo maxay ku qiyaasan yihiin dadka aanu jannada akolba baahidooda ku qiyaasanta adiga cabitaanka aad u baahan tahay qiyaasta marka aad u baahan tahay kaana badnayn kaana yarayn ayaa lagu soo jaangooynaya wala lagu fiirso waa waxaan adduunka iyadana lagu hayn xataa lagu weydiin maayo waa lala socdaa inta kugu filan ee aan ka badanayn kaana yaraanin intaas lagu soo jaangooynay maxay leeyahay hadii cuntadu ka badato ama cabitaanku ka bato wax yani waxa way ka badan meesha la keeno
waxoogaa markaad ka dherigto waa dhibsan sooma wixii markaad ka dherigto oo soo haro yani waxoogaa waa dhibsan ama qiyaastii aad u baahnayd ka badan haddaad cabto hadduu kaa yaraadana adigoo weli gaajaysan oo baahan buu wixii kaa dhammaaday oo weli yani waxa weeye maadan maqsuudin laakiin intaad u baahnayd oon kaana yarayn kaana badnayn markay tahay waa qiyaasaan caadi ahayn wey macana qadaruuha taqdiiran shaqaalaha adduunka laguma hayo shaqaalaha madaxweynayaasha iyo tijaarta waaweyn iyo u adeegaayay qiyaasta uu ninkani u baahan yahay ma keeni karaan soo saas ma ama wuxuu soo hambeeyo oo uu ku rafaaday keenaya ama wuxuu wax uu sii baahday keenaya labadaa mid ka mid laakiin qadaruuha taqdiiran waa xaalad janno wey macana saas waxaa la waraabinayaa jannada dhexeeda ayagoo ku jira waxaa la waraabinayaa galaas khamro galaaska khamro waxaa lagu barxay zanjabiil khamrada zanjabiil baa lagu barxay xagga horena maxaan soo marnay kaafuuran baa lagu barxay waa laba maado oo kaafuurkuna wuu qaboojiyaa khamrada zanjabiisuna way kululaysaa oo way hurisaa marka marna waxay cabayaan khamro kulul oo zanjabiil lagu daray marna waxay cabayaan khamro la qaboojiyo kaafuur lagu qaboojiyo kolba waa xaalkii kolba sidaad rabtaa way maaduu soo rabtaa ma mid kulul mise mid qabow kolba taad rabtaa lagu keenaya macna zanjabiil saas wey haddana zanjabiishani ma aha mid meelaha la riiqriiqay oo gacan lagu sameeyey oo yani meel ku guntan oo yani meel xun ku jirta ma ah waaba il durduraysaba il zanjabiil ah oo durduraysa wey caynan fiiha tusama salsabiilan ishaa salsabiil la yidhaahdo iyadoo dhanba waaba zanjabiil socotaba hadda waxaad arkaysaan magaca unbay adduunyada waxa yaalla ka wadaagaan sanjabiishan iyo kaafuurkan iyo waxa la akriyayo iyo khamradan iyo magaca unbaa ka dhaxeeya laakiin isku mid maaha wax isu dhowna maaha saas macna ayib wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala muttaki'iina xaal ay yihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala abaalmariyey muttaki'iina ayaga oo kuwa xusulaysan fiiha jannada dhexeeda cala alaraa'iki sariirihii khaaska ahaa korkooda sariirihii arooska korkooda ayay ku xusulaysan yihiin laa yarawna ayagoon arkaynin fiiha jannada dhexeeda shamsan wax qoraxa walaa zamhariiran iyo qabow toona wadaaniyatan xaal ay tahay mid ay dhowdahay calayhim korkooda ay u dhowdahay dilaaluha jannada hoosaskeedu ay u dhow yihiin wadullilat waa la layliyey oo waa la sakhiray qutuufuhaa midhaha laga guranayo tadliilan laylin baa la layliyey sakhirid baa la sakhiray oo way iska leey waa carbisan yihiin macna wayutaafu waa la wareegi calayhim korkooda waxaa lala wareegayaa biaaniyatin weelal baa lala wareegaya weelalshaasoo min fidatin qalin ah qoladan hadda laga warramayo waa asxaabu lyamiin amaa muqarabiin iyo asaabiquuna qoladan kusoo marnay ayagu ilaha qoladan loo barbarxaayo uma barxana ayaga zanjabiishaad arkaysaanoo saafiya bay cabbayaan kaafuurkaasoo saafiya bay cabbayaan ayagu waxoodu lama barxo laakiin qolada wax loo barxo waa asxaabulyamiin saas daraaddeed baa weelashooda maxaa la yidhi min fidatin baa layidhi qoladaana weelashooda maxay ka samaysnaayeen dahab bay ka samaysan yihin waxaa marka meesha laga warramayaay waa asxaabulyamiin asxaabulyamiin hadday sida yihiin saabiqiin warkooda ka warkooda kuwaasi waa laalan yahay macnaha saas weeyaan ayib wayutaafu calayhim biaaniyatin min fidatin iyo wa akwaabin koobabyaal koobabkaasoo kaanad ahaaday qawaariira dhalooyin iyo yani wax way quraarado ahaaday qawaariiro ahaaday dhalooyin oo min fidatin fida ah fidadaasoo ama yani waxa wey koobabkaasoo qadaruuha ay qadareen taqdiiran qadarid waa la soo qiyaasay oo waa la soo jaangooyey baahidaa lagu jaangooyey oo lagu qiyaasay wayusqawna waa la waraabinayaa fiiha jannada dhexeeda xaaluu yahay ka'san galaas baa la waraabinaya khamra laga wadaa khamradaasoo kaana uu ahaaday misaajuha kan lagu barxayaay zanjabiilan uu sinjabiil yahay waa lasii kululaynaya marka macnaha caynan il uu ahaaday ama caynan il baa laga waraabinaya ishaasoo fiihaa jannada dhexeeda ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiilan salsabiil lagu magacaabo salsabiil waxaa loogu baxiyey baa layidhi lisalaasati jarhiha si fudud bay u socotaa ama waxaa loogu bixiyey lisalaasatiha fi lxalqi baa la yidhahda dhuuntaa waxay u martaa si fudud ayay dhuunta u maraysaa macnaha wayatuufu waxaa wareegaya calayhim korkooda waxaa ku dul wareegaya wildaanun wiilal oo mukhalladuuna la waariyey idaa goortii ra'ayta aad aragto hum wiilasha yararka xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu'lu'an luul baad u malaynaysaa mansuuran oo la firdhiyey waidaa goortii ra'ayta aad aragto uma halkaa markaad aragto ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman
shay laysugu nicmeeyo wa mulkan iyo boqortooyo kabiiran oo weyn baad arkaysa caaliyahum waxaa korkooda ah ay fawqahum wey waa daraf caaliyahum korkooda waxaa ahaaday hiyaabun dhar hiyaabu sundusin xariirta mideeda adag dharkeeda khudrun oo cagaar ah wa istabraqun iyo xariirta mideeda jilicsan ee qarada yar waxulluu waa la qurxiyey asaawiro ayaa lagu qurxiyey jinjimo oo min fidatin fida ah wasaqaahum waxaa waraabiyey rabbuhum rabbigood baa waraabiyey sharaaban ayuu waraabiyey sharaab tahuuran oo wax dahira ina haadaa baa lagu yidhi markaa intaa markii laysugu daray baa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa ina haadaa kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud buu idin ahaaday wa kaana wuxuuna ahaa sacyukum camalkiinni wuxuu adduunka markaad joogteen mashkuuran mid laga shukriyu ahaa camalkaad la timaadeenna mid mudan in laga shukriyo oo laydinka abaalgudo ayuu ahaa macna shaqaalahoodiibaa haddana laynoo sheegayaayo wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna waxaa ku dul wareegaya oo u shaqaynaya wiilal la waariyey mukhalladuuna la waariyey waxaa laga wadaa ma dhintaan waxaa kaloo la waariyey xaaladaa ay ku sugan yihiin baa lagu waariyey oo ma gaboobaan wiilnimadaas iyo dhalinyaronimadaasa lagu waarinaya saas way macana wiilashaas oon da-oobaynin oon da-daa dhaafaynin ayaa ku dul wareegaya iyagaasaa u shaqaynaya waxa koobabkan iyo hawshan iyo kala wada ee ka shaqaynaya iyaga wey saas way macana adigu isdhaqaajinba maysa haddaadun iska tamashlaynayso meelhaagaad iska soo marmaraysa meesha adow laakiin baahi iyo dan aad leedahay u kici maysa kuwaasaa loogu talagalay oo ka shaqaynaya oo laba abuurayba ayaga laftoodu shaqaalahaagu hadduu foolxun yahay oo isha qabashadeeda ayna ku fiicnayn waxoogaa waa dhaliil laftoodiibaa waxaa laga dhigay wax qurquruxsan haddaad aragto wiilasha yaryarkaa waxaad u malaynaysaa luul la firdhiyey baad moodaysaa luulku markuu ishaysto waa quruxsan yahay laakiin wuxuu aada uga sii quruxsan yahay marka inta la yaryareeyo la firdhiyo oo gogasha sidaa loogu firdhiyo yani waxa weye dahab iyo waxyaalo kaleeto iyo macaadin kalena lagu dhex daro markaasuu aada u quruxsan yahay marka waxay say u baahsan yihiin oo meel walba u joogaan waxaad moodaan luul la firdhiyey baad moodaa wiilasha yarka quruxdooda macna wuxuu rabbi yidhi subxaana watacaala haddaad halkaa arki lahayd ma haddaad aragto meeshaas waa jannada iyo hawsha taalla waxaad arki lahayd shay laysugu nimceeyaad arki lahayd iyo boqortooyo weyn baad arki lahayd hawl weyn baa meeshaa taalla hawl un hadda afka un aan wax weyn looga sheegi karaynin ayaa meeshaa taalla oo midda nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa uu ku sheegay waxaana miaal inoogu filan dadka jannada gelaya midka boos ahaan iyo mansilo ahaan ugu hooseeya waa ruuxa la siin doono adduunyadii oo 10 goor la labanlaabay yani adnaa ahli ljannati manzilatan waana ninka ruuxa ugu dambeeya oo naarta shafaaco lagaga soo saari doono wey waxaa la leeyahay sheego maxaad rabtaa wax alla wuxuu rabay oo qalbigiisa ku dhacay buu sheeganaya fikir baa la leeyahay haddana wax walba markay ka dhammaadaan baa waxaa la leeyahay waxaad leedahay adduunka wixii yaallay oo dhan oo 10 goor la labanlaabay baad leedahay adduunkan intaan hadda dhisan keliya maaha maalinkuu soo bilowday ilaa maalinkuu dhammaanayo waxa dhex yaallo oo dhan oo lagu intifaaco intaasoo dhan baa laysugu daraya hadduu yahay kii ugu hooseeyey midkaasi kuwa ka korreeya bal xaalkooda ka warrama soo cajiib maaha xaqiiqadu marka sidaa weeye uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiran mulki weyn wey iyo boqortooyo aan caadi ahayn adduunkana lagumama suuraysan karaba ma aha nin yani waxa weeye gobol ka taliyiyo nin magaalo ka taliyiyo nin dhowr milyan u taliyiyo nin bilyan u taliyiyo ma aha waa nin adduunka oo dhan maalinkuu soo bilowday ilaa maalinkuu dhammaaday la hoosgeeyo la yidhi adaa iskale saa doonta ka yeel la yidhi kii ugu hooseeye wey kaa isaga macna waa mulki weyn marka dharkoodaa laynooga sheekeeyo waxaa la yidhi korkooda waxaa ah xariirta noocyadeedoo dhan sunduska waxaa la yidhahdaa xariirta mideeda qarada yar ee khafiifka ah ee jilicsan oo inta badan jidhkaa la xijiyaa sida masalan kastuumooyinka iyo funaanadaha iyo dhiildhowrka iyo xagga jidhka ayaa la xijiyaayo marada jidhka xigtaa laga dhigaa sunduska amaa istabraqu waa dharka ka koreeye xaraga ahaan loo qaato waa xariirtii baa laba nooca labadii noocee xariirtaba waa loo xidhaya macnaha waxaa lagu qurxinayaa oo macnaha waxa weye billad looga dhigayaa
jinjimo fida ah oo dumar baa lagu ogaa inay jinjimaha qaataan raggana maxaa jinjimaha loogu xidhay aakhara la joogaa adduunyo ma aakhara la joogaayo bilad iyo qurxin iyo yani waxa weeye dadkan kadaata sidii iyagoo macnaha munaasabad weyn u socdo kaleeto baa loo labisaya oo la qurxinaya min fida wasaqaahum rabbuhum sharaban tahura qalbigooda iyo gudahooda korkooda sida loo qurxiyey loogu labisay markii laynoo sheegay gudahoodiiba hadda laynoo sheegay qalbigooda iyo calool ku jirtoodoo dhanna ilaahay baa wuxuu waraabiyey biyo soo dahiray oo nadiifiyey oo maxay ka nadiifiyeen waxay ka nadiifiyeen cudur kasta oo xun oo dhan wasakoo dhan bay ka dahireen waxaa laga dahiray xasadkii waxaa laga dahiray ismaaciilkii waxaa laga dahiray wax kastoo qalbiga gala oo xumaan ah ayaa laga wada saaraya oo biyahaasi ka dahiraya biyahana ilahay baa waraabinaya subxana wa tacala saas wey macana wayatuufu waxaa ku dul wareegaya calayhim korkooda wildaanun wiilal oo mukhalladuuna la waariyey idaa goortii xaaladoodaasa lagu waariyo ma gaboobayaan idaa goortii ra'ayta aad aragtahum iyaga wiilashaasoo idaa ra'aytahum markaad aragto xasibtahum aad u malaynayso lu'lu'an luul aad u malaynayso mansuuran oo la firdhiyey quruxdooda wa idaa goortii ra'ayta aad aragta meesha halkaa laga warramayo ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman shay laysugu niceeye ayaad arkaysaa wa mulkan iyo boqortooyo kabiiran oo weyn baad arkaysaa waxaan caadi ahayn caaliyahum waxaa korkooda ah ay fawqahum waay waa daraf caaliyahum waxaa korkooda ah hiyaabu sundusin xariirta mideeda jilicsan dharkeeda khudrun midaasoo cagaaran midabadu ugu quruxsan yahay cagaar wa istabraqun iyo xariirta mideeda qarada weynee yaro adag oo korka laga qaato korka laga labisto waxulluu waa la qurxiyey asaawira ayaa lagu qurxiyey jinjimo oo min fidatin fida ah wasaqaahum waxaa waraabiyey rabbuhum rabbigood baa waraabiyey sharaaban cabitaan ayuu waraabiyey tahuuran oo wax daahirinaya wax alla waxa hoos ku jira oo dhan buu soo daahirinaya calooshii iyo qalbigii iyo wixii ku jiray oo dhan ayuu soo hufay kor iyo hoosba marka nimankaa waa niman laga shaqeey dad laga shaqeey wey macana ina hada kana lakum yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa sidaa markii wax loo siiyo ina hada kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud buu idin ahaaday agoobay moogtahay haddii inta wax lagu siiyo lagu yidhaahdo waa layska kaasiiyey iyo haddii inta lagu siiyo lagu yidhaahdo waad shaqaysatay sooma kala fiicna waad shaqaysatay baa macaan dhididkaagii baad guranaysaa haddii lagu dhaho iyo waa lagugu sadaqaysto waa layska kaasiiyey kala fiican saas daraaddeed baa waxaa la leeyahay ina hada kani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalgud idinkaa shaqaystay wa kaana wuxuuna ahaa sacyukum camalkiinii adduunku mashkuuran mid laga shukriyo ahaaday mid laga mahad celiyo abaalgudkiisa laydin siiyo ayuu ahaa camalkiinu oo waad soo shaqaysateen baa laleeyahy inaa anagu naxnu anagu nazalnaa waan dadejinay bu rabbi yihi subxana wa tacala calayka korkaaga waxaan kusoo dejinnay alqur'aana qur'aankiisa tanziilan soo dejin ee fasbir sabir nebi maxamedow lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir walaa tudic hana adeecin minhum gaalada xaal uu ka mid yahay aasiman mid dembaabay aw amase kafuuran mid kufrin badan wadkur xus isma rabbika rabbigaa magiciisa xus bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba wa min alleyli habeenka qaarkiina fasjud sujuud lahu alle u sujuud wasabbixhu alla nazah laylan habeen dawiilan oo dheer ina haaulaai kuwani yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata midda degdegaysa wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum gadaashooda yowman maalin bay kaga tegayaan haqiilan oo culus waa maalinta qiyaamade aayadan macnaa inaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziilan tani waxa weeye waxaa laynoo tilmaamayaa waxaas laga soo sheekeeye barwaaqee jannada taalla furaha lagu furtaiyo shayga lagu gaadhayo waa qur-aankaa lagu gaadhaa barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo weynayntiisa iyo qaadashadiisa iyo taasaa lagu gaadhaa inaa anagu naxnu annaga ayaa nazalnaa dejinay calayka korkaaga alqur'aana qur-aankii baan kugu soo dejinay nebi maxamedo tanziilan soo dejin annagaa kugu soo dejinay ee meel kale kama imaan sixirna ma aha yani bini aadam kalena maadan ka keenin asaadiiru lawaliina meha annagaa soo dejinay ee fasbir sabir lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa xukunkani waxa weeyaan waa qadihi iyo qadarka sidan aad arkaysa ilahay baa wax u xukumay yani waxa weeye gaaladan ku diiday waa xugum ilahay in lagu dhibo waa xugum ilaahay dad qaarkii inay ku raacaan waa xugum ilaahay xugumka ilaahay ha ka cadhoonin ee u sabiroo adkaysaa laleeyahay isbir lixukmi rabbik fasbir lixukmi rabbik walaa tudic hana adeecin minhum gaalada xaaluu ka mid yahay aasiman mid dembaabay oo dembiila ah aw amase kafuuran mid kufrin badan gaaladanna warkooda marnaba ha yeelin
mid dambaabay iyo mid kufrin badan toona warkood ha qaadan yani markaad xaalad culaysa gasho oo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam waaga dhibka lagu hayo kaleeto oo dhinacyaha intay kaaga yimaadaan waxoogaa waxa laga yaabaa marka qaarkood inaad isaga yara dabacdo tiraado waramay maslaxadu sidan ku jirtaa oo yara dabacdo marka waxa la leeyahay hadabeen nimanka waxay wataan midkooda dambiilaha midkooda gaalnimada badan ha adeecine adkaysi yeelo ku adkow mowqifkaaga leeyahay sabir oo dhibka lagu geysanayna isaga dulqaado saas la leeyahay wadkur xus tanna waa wasiiladii ugu kaalmayn lahayd sabirka wa kan maradan soo sheegno xaalad markaad gasho ciriiri ah oo lagula dagaalamo lagu dacaydeeyo laga hor yimaado waxa la kaashadaa ilaahay cibaadadiisa la kaashadaa taas ruuxa u noqota kaalmo u noqoto garab u noqoto waa weeshanaya ruuxii qalbigiisa degaya adayg iyo awood iyo xoog bay cibaadadu ku siinaysaa waxa lagu waajahaa oo lagaga hortaga xaaladaha adag oo dhan ba lagaga hortaga saas daradeed nabiga sallallahu alayhi wasallam mar alla markay xaaladu adkaato cibaadada aad baa leeyahay saas weeyaan cibaadada rabbi ku carra subhanahu wa ta'ala wadhkur hus isma rabbika rabbiga magiisa hus bukratan arorti iyo wa asilan galab iyo aroor ba rabbiga hus wa min al-layli habeenka xaqiisana habeenka qaarkiina fasjud sujud lahu alla sujud wasabbihu alla nazah oo ka fogee waxaan u qalmin oo u diid laylan habeen bawiilan oo dheer labadaas aayado waxa laga dhigi karayaa salaadihii shantaydo dhan laga dhigi karaa bukratan salaadii subax wa asilan wa salaadii duhurka iyo casrka laga dhigi karaa wa min al-layli fasjud lahuna ishihi iyo maghribkii baa galay ishihi iyo maghrib shantii salaado saasay u galayaan macna yani waa hadii dhikri guud laga dhigana waa la heli karay inna haula'i kuwani nabi maxamed ka soo horjeeday yuhibbuna waxay jecelyihiin al-aajilata mid degdegis kalla bal tuhibbuna al-aajilata wa tadharuna al-aakhirata wa nabi darsigeena shalay ku soo marnay kuwan adduunka bay jecel yihiin oo aakhirada damba kamale wayadharuna waxay ka tagayaan waraa'ahum gadaashooda waxay kaga tagayaan yawman maalin thaqilan oo culus maalin aan sahlanayn oo cusle oo aad u culusna ayagu damba kala mool jadwalkaba uguma jira kuma xisaabtamaan ba ayagu laakiin adduunyada degdegaysay jeceliin nahnu annaga ayaa khalaqnaahum abuurnay oo washadadna adkaynay asrahum xidhidoodana annaga adkaynay asrahum abuurkooda adag ama xidhidooda wayda goortii shiina aan doonana badalna waanu badal qaadanaynaa amsalahum kuwa iyagoo kala ah tabdiilan badal qaadasho inna hadhihi midani suuradani tadhkiratun waaniwi walayni waaninaya layni aqal xelinaya faman ruuhi shaa doonay ittakhadha wuu samaysanaya ila rabbihi xaqi wuxuu u samaysanaya sabiilan jid umaro jid ilaahi naxariistiisa iyo ridihiisa umaru samaysan wama tashaa'una man dooni kartaan yani samaysigaas illa an yasha Allah inuu alla doono mooyee inaad jidka samaysataan oo ku toostaanna ma heli kartaan inuu alla idin la doono mooyee inna Allah alla kana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsalo shay walba meeshiisa dhiga yudkhilu alla wuu geliyaa man yashaa cidu doono fi rahmati naxariistiisu geliyaa wadh-dhaalimiina dhaalimiintana a'adda wuu diyaariyay lahum yaga cadaaban cadaab wuu diyaariyay aliiman oo xanuujiya ayada nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum annaga abuurnay buu rabbi leeyahay kadibna xidhidooda adkaynay asriga laba macno leeyahay shiddatul khalqi wal ilaa abuurka adag abuurkoodaas adag annaga adkaynay wala dhigi kara waxa kale oo asriga leeyahay xidhida oo bini aadamka markuu ilaahay abuuray xubnaha uu sameeyay xubnaha waad aragtay oo waxa isku haya xarko Soomaaliya seeda isku haya xidida isku haya waa la xidhiday xidhkaasina waa xidhid aad u adag weey xidhka annaga sameeynay rabbi subhanahu wa ta'ala oo sida xubnihiisa isugu xidhnay haddaanu doonana kuwa ayagoo kala abaanu badal qaadanayna badal qaadasho laba macna noqon karta intaanu baabi'ino baanu kuwa iyagoo kala bini aadanan abuuri karna in yasha yudhibkum wa ya'ti biqawmin akharin hadduu doono alla intuu idin tartamo kuwa kala keensanay waxa kale suuroobi karta in laga wado wayda shi'na badalna amsalahum tabdilan haddaan doono ayaga intaanu markay dhintaan kadib waxaanu soo noolaynaynaa oo aakhira aanu soo noolaynaynaa kuwa iyagii oo kaleeta oo noloshii baanu dib ugu soo celinaa isla iyagii markaa noqonaysa oo markaa waxay noqonaysaa ayadda qaybtooda horena waa abuurkii hore qaybtan dambana waa abuurka dambe ee aakhiro wayda shi'na badalna amsalahum tabdilan labada tafsiir ba wajira suuradani marka waa waanin leedin waaninayo
ruuxii doonaayay wuu samaysanayaa rabbigii jiduu u maro naxariistiisa iyo jannadiisa uu maruu samaysanaya oo iimaan iyo camal saalixa mana dooni kartaan samaysigaas jidkaa inaad samaysataan ma dooni kartaan mana heli kartaan inuu alla idinla doono mooyaane allana subxaana wa tacaala wuu og yahay oo aad wuxuu ogsoon yahay cidda mudan in jidkaa la waafajiyo xakiim weeyaanoo iimaanka iyo camalka saalixa ilaahay ma dhigo meeluuna istaahilin ma dhigo addoonkiisa markuu ka arko inuu yahay addoon hanuundoon ah oo dadaalaya oo yani waxa weeyaan yani janno iyo rido ilaahay u baahan markaasuu ilahay hanuuninaya subxana wa tacaala laakiin addoonka hadduu arko inuuba sii jeedo wadanba kala hayn oo ilahayba ka kaaftoomayba janno ma rabo aakharana ma rabo rido ilaahayna ma rabo hadduuba sii jeedsadayba yaa wax ku falaya marka rabbi subxana wa tacala wuxuu yidhi yudkhilu man yashaau fii raxmati ilahay naxariistiisa wuxuu geliyaa oo naxariista adduunna waxa wey waa iimaanka iyo camalka saalix iyo diinta wey naxariista aakharana waa taa waxa ka dhasho oo janno iyo rido ilahaya macna aalimiintana ilahay wuxuu u diyaariyey cadaab xanuujiye ayuu u diyaariyey naxnu annaga ayaa khalaqnaahum abuurnay washadadnaa waanu adkaynay asrahum xidhxidhidooda ama abuurkooda adag ayaanu adkaynay waidaa goortii shi'naa aan doonana badalnaa waan bedel qaadanaynaa amhaalahum kuwa iyagoo kala a baanu bedelkooda qaadanayna iyagaan tirtiraynaa waxaan ku bedelanaynaa amhaalahum kuwa iyagoo kala a tabdiilan bedel qaadasho ama ku bedelasho ayaanu ku bedelanayna ina haadihi midani suuradda way tadkiratun waaniyo aad baa laynoo waaniyeyo waxaa laynooga soo bilaabay abuuristeenii waxaa laynoo sheegay maraaxiishaynu marnay ujeeddada laynoo abuuray waxaynu ku dambayn doono sidaasaa wax laynoogu cadeeyo laynoogu caqli celiyey ee faman shaaa ruuxii doonaayay ittakhada wuu samaysan ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa sabiilan jid buu samaysanaya sabiilan jid buu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa wuu maro iimaan iyo camal saalixa wamaa tashaa'uuna mana dooni kartaan hada litikaada wey samaysigaa jidka la samaysanayo ma kari kartaan ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo falsano shay walba meeshuu leeyahay dhigo wey xikmad leh yudkilu alla wuu geliyaa man yashaau ciduu doono fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeduu geliyaa waalimiina aalimiinta gaaladana acadda alla wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey aliiman oo wax xanuujiya